kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa Warlelis Media oo aad mar walba ka daawataan wararkii ugu dambeeyay dunida dacaladeeda gaar ahaan Soomaaliya. Fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar, sidoo kale saaxiibadeeda u gudbisiina share gareesi markasta ay u helaan wararka ugu dambeeya dalkooda. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo u jawaabay madaxweyne Qoorqoor oo maamulkiisa si maldahan ugu eedeeyay inay taageereen ahlu sunnadii ay kula dagaalameen magaalada Gurceel. Kismaayo oo maanta duqa magaaladaasi loo magacaabay nin xilal kala duwan ka soo qabtay deegaanada Puntland. Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dadka Soomaalida ah ee sida xun loogu xirxirayo Zambia isla markaana laga soo masaafurinayo. Naag Soomaali ah oo ururka Al-Shabaab lacag ugu aruurin jirtay waddanka Holland oo la qabtay loona gacan geliyay dowladda Mareykanka. Wararka dibadda aad ku daawan doontaan bartan Warlelis Media waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kala timid waddanka Iran. Haddaba arrintaasi maxay u dhibi kartaa xiriirka Itoobiya ay dowladaha reer galbeedka la leedahay maadaama ay xiriir ciidan la samaysatay waddanka Iran oo cunaqabateyn ayagu ay saareen. Shir madaxeedkii ugu horreeyay tan iyo markii uu dunida ka dilaacay cudurka COVID-19 oo maanta lagu qabanayo waddanka Italy gaar ahaan magaalada Roma. Sheekooyinka kale aad daawan doontaana waxaa ka mid ah gabar u dhalatay waddanka Soomaaliya oo guursatay nin Kenyan ah iyada oo sheegtay in weligeedba aysan arag nin noocaana uu yahay qofka dunida ugu fiican ninka Kenyanka ah ee ay guursatay. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka Warlelis Media ku soo dhawaada. aynu ku bilaabana daawadayaal madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa u jawaabay madaxweyne Qoorqoor oo maamulkiisa si maldahan ugu eedeeyay inay taageeraan ahlu sunnadii ay kula dagaalameen magaalada Gurceel. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo u muuqday mid ka jawaabaya hadalkii Qoorqoor ayaa iska fogeeyay in maamulkiisu uu ka shaqeeyo wax kasta oo caqabad ku ah amniga iyo wada shaqeynta ka dhaxayn karta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweyne Dani ayaa u muuqday mid ka jawaabaya hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Galmudug oo ku saabsanaa in ay jiraan maamulo deris dhow la ah Galmudug oo horinaya colaadda Gurceel ee ka taagneed barihii la soo dhaafay. waxaan idiin xaqiijinayaa in mar walba wada shaqeyn dhow la leenahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. wax kasta oo amnigooda iyo horumarkooda wax u dhimaya waxa ay sidoo kale yihiin kuwa amnigeena wax u dhibaya, ayuu yiri Siciid Cabdullaahi Dani. maamulka Galmudug ayaa aaminsan in hogaamiyaasha ahlu sunna wal jamaaca ay si dhow ugu xiran yihiin maamulka Puntland, waxaana madaxweynaha Galmudug uu sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay dagaalka Gurceel. gudoomiyaha gobolka Mudug Sanyere ayaa horey u beeniyay in Puntland haba yaraatee ay ku lug leedahay dagaalka Gurceel, isagoo oo wax kama jiraan ku tilmaamay in hub iyo saanad military ay ku taageereen ururka ahlu sunna ee ka dagaalamayay barihii la soo dhaafay magaalada Gurceel. markana magaalada Kismaayo waxaa duqa magaaladaasi loo magacaabay nin xilal kala duwan ka soo qabtay deegaanada Puntland. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa Cabdullaahi Maxamed u magacaabay gudoomiyaha degmada Kismaayo iyo duqa magaaladaasi. Cumar Faraweyne oo horey u soo noqday gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland ayaa xilkan loo magacaabay. madaxweynaha ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii Kismaayo Timijile oo muddo dheer xilkaasi isagu hayay. waa tahay daawadayaal Warlelis Media ayaa weli naga daawanaysaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar, saaxiibadeeda u gudbi si markasta wararka ugu dambeeya dalka iyo dibadda ay la socdaan. dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dadka Soomaaliyeed ee sida xun loogu xirxirayo Zambia isla markaana la masaafurinayo. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay war qoraal ah oo ka soo baxay inay si dhow ula socoto warbixinada sheegaya xarig wadareedka lagula dhaqaaqay dadka Soomaalida ah ee ku nool magaalada Ndola ee dalka Zambia oo loo beegsanayo hab isir ah iyadoo aan la eegaynin dhalasho ahaan. waa arrin walaac dhalisay ay tiri wasaaraddu arrintaasi, waxayna xilligan ku howlanahay sidii cadaymo lagu heli lahaa dowladda Zambia sababta dadkaasi loo xirxirayo. waxaana rajeynaynaa ay sheegeen in si degdeg ah loo xallin doono arrintaasi. dadka Soomaalida ee halkaasi ku noolna ay si sharaf ugu noolaan doonaan waddankaasi. daawadayaal weli waxaa naga daawanaysaan barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Warlelis Media iyo sidoo kale barta Facebook aan ku leenahay labadaba. haddii aad
warkan jeclaysatay saaxiibadaada u gudbi si ayaguna ay ugu soo gudbiyaan saaxiibadooda kale. Haweeney Soomaaliya ka soo jeeda isla markaana ku nool waddanka Holland ayaa la sheegay in la xiray kadib markii lagu soo eedeeyay laguna ogaaday in ay lacag u aruurinaysay ururka Al-Shabaab. Haweeneydan u dhalatay dalka Holland balse asalkeedu yahay Soomaali oo 7 sano ka hor lagu eedeeyay inay lacag u aruurinaysay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa loo gacan geliyay dowladda Mareykanka si ay u wajahdo maxkamad. Farxiye Xasan oo 38 sano jir ah ayaa Jimcihii horaantiisii waxa ay ka soo muuqatay maxkamadda degmada Alexandria ee waddanka Mareykanka kadib markii Khamiistii la keenay Mareykanka iyadoo lagu eedeeyay inay qorsheynaysay inay taageero qalab siiso ururka argagixisada ee Al-Shabaab, waxaana la amray in la sii hayo inta laga dhageysanayo dembigeeda. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Farxiye Xasan ay caawinaysay lacag in loo aruuriyo ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya. Waa tahay daawadayaal, Warlaliis Media ayaa naga daawanaysaa markana warka arrimaha dibadda. Dowladda Itoobiya ayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kala timid waddanka Iiraan. Haddaba arrintaasi maxay ka bedeli kartaa xiriirka Itoobiya iyo dowladaha horumaray gaar ahaan kuwa reer galbeedka maadaama ayagu ay saareen waddanka Iiraan cunaqabateyn inaan waxba laga iibsan karaynin. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay xaqiijisay in waddanka Itoobiya ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-iska loo yaqaano kala yimaadeen waddanka Iiraan, kuwaas oo qayb ka ah howlgallada dagaal ee ka socda gobolka ku yaala waqooyiga dalkaasi Itoobiya ee loo yaqaano Tigreega. Dagaalkan ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ee dowladdu kula jirto maamul goboleedka Tigreega sheegay in ay ka go'ayaan Itoobiya inteeda kale ayaa la aaminsan yahay in wax weyn ay u dhimi karto mustaqbalka siyaasadeed iyo nafeed ee ra'iisul wasaaraha waddankaasi hogaamiya Abiy Ahmed. Weli Warlaliis ayaad nagala socotaan markana. Shir madaxeedkii ugu horreeyay tan iyo markii dunida uu ka dilaacay cudurka COVID-19 ayaa maanta lagu qabanayaa waddanka Italy gaar ahaan magaalada Roma. Shirkan oo u dhexeeya 20 waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka loona yaqaano G20 ayaa maanta ka furmaya waddanka Talyaaniga, waxa uuna socon doonaa muddo 3 maalmood ah, iyada oo looga hadlayo dib u soo kabashada dhaqaalaha adduunka kadib hoos u dhicii cudurka COVID-19, kor u kaca qarashka tamarta iyo saameynta cudurka COVID-19. Wadamada ku bahoobay G20 ayaa waxaa ugu badan Midowga Yurub, 19 kale oo wadanna waxay ka soo jeedaan qaaradaha kale ee adduunka. Wadamadan ayaa waxaa ka mid ah Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, South Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom iyo United States oo loo yaqaano Mareykanka. 2 meelood oo ka mid ah bulshada caalamka waxa ay ku nool yihiin dalalkan ku jira ururka G20, waxaana sidoo kale xusid mudan in 20ka dal ee soo haray 20kan wadan ee ku midoobay ururkan ay 85 dakhliga guud ahaan caalamka ay iyagu maamulaan waddankoodana uu ka soo baxo. Waa tahay daawadayaal, sheekooyinka kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah gabar Soomaali ah ayaa guursatay nin Kenyan ah iyada oo sheegtay in weligeedba dunida nin ka fiican aysan arag ninkan Kenyaanka ah iyada guursatay. Gabadhan oo lagu magacaabo Nasra ayaa nolosha kula mataanowday askari Kenyan ah oo ka tirsan ciidanka militariga Kenya, iyaga oo ku wada nool magaalada Mombasa. Nasro ayaa sheegtay in ay ninka sidaan u eg ay ku raacday qurux iyo daacadnimo sida ay iyadu hadalka u dhigtay. Gabadhan Soomaalida ah ayaa hadda ninkan Kenyaanka u haysa hal wiil, iyada oo sii hadlaysana waxa ay tiri ninkayga nin la mid ah weligay adduunyada kuma arag kumana arki doono sida aan aaminsanahay, sababtoo ah waxa uu siiyey farxad dunida tii ugu sarreysay waana jeclahay aniga. Haddaba daawade, arrintaasi siday kula tahay? Warlaliis Media ayaad nagala socoteen. Fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook aan ku leenahay, subscribe garee, share garee, saaxiibadaada u gudbi si mar kasta maalin kasta wararka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamkaba aad ula socotid. Inta aan ku kulmayna warkan mid la mid ah, sidaas iyo nabadgelyo.